الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد halkan waxaan jecelahay inaan uga gudbiyo fariin dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha gaar ahaan dhalinyarta fariinta ciwaan waxaan uga dhignay yaa ku ehel ah marka aynu leenahay yaa ku ehel ah waxa laga yaabaa dhalinyarta amba dadka in kamid in la soo boodaan ehelka laga hadlayo waa ehelkan ka dhalanay kana la dhashay iyo kana dhalayba ehelkaagu waa ehelkaad ka dhalatay ka kula dhashay iyo ka kula dhashayba kaasna waa kii dhalashada iyo aftirsiinta laakiin ehelka aynu ka hadlaynaa waa kii walaaltinimada diinta weeye diintu waxay u baahan tahay walaaltinimo waxay ka soocaysaa oo ay gaar kaaga dhigaysaa walaalkaaga diinta dhabta ah ay ku yahay waana ka raasamaalka ah ee loo baahan yahay ka ehelka ilaahay bayna faray oo inagu waajibiyay inaynu ehelka xidhiidhino sida loo xidhiidhinayo diinteena inoo tilmaamtay kamana hadlayna sidoo kale kii dalka iyo kii dhalashadaba mawduucana waxaan u dooranay markii ay soo baxeen dhalinyar inaga ah oo inala ehel ah oo dadkeena ah oo waxbarasho dibadeed loo diray laakiin se fikir aad u adag oo khaldan oo guraacan oo diinta khatar ku ah ay qaateen fikirkaas oo ah diimaha ilaahay agtiisa waa u siman yihiin oo diin ilaahay gaar yeelay oo uu gaar u soo dhaweysanaya ma jirto taas oo iyada laftigeedu khatar diimeed ah ilaahay ba subhanahu wa ta'ala yiri inna diina 'inda allahi al-islam diinta ilaahay agtiisa ahaatay waa diinta islaamka sidoo kale waa kii ilaahay lahaa wama yabtaqi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasirin qofka doorta aan diin ahayn diinta islaamka ilaahay agtiisa laga aqbalay waa lagu celinaya marka ilaahna waa ka tilmaamay in khasaar qofkaas ku sugan yahay marka khasaaraha dhalinyarta soo waajahay ay doonayna inaynu iftiimino sidoo kalena aynu dadka uga digno sababta aynu uga diganana waxa weeyaan kuma koobna fikirku dhalinyarta qaadatay se waxay imka soo baxay in bulshada dhexdeeda ay ku sii daayaan oo ay faafiyaan fikradaha kale ee dhalinyartana ay la soo baxday waxa kamid ah in culimadii mar walba aflagaadeeyaan bulshadii iyo culimadina ay doonayaan inay kala saaraan wajh xumo ay culimada u yeelaan waxa kale oo ay qaateen oo ah in qofka gaalka iyo qofka muslimka ah wax lagu soo kala dhaweysanayaa una jirin sida daraadeed aynu jecelnahay qodobooyin tala ah inaynu gudbino oo qodobka ugu horeeya aynu ka yeelnay in diinta la barto barashada diintu qofka bini aadamka waxa ay siinaysaa hilin uu mari karayo hayaankiisa mustaqbalkiisa aakhiro iyo kiisa adduunyada diinta barashadeedu qofka waxa ay tusaysaa qofka uu soo dhaweysanayo ee ehel u noqonaya ee uu xigta ka dhiganayo qofka uu ka bari noqonayo ee uu iska fogeynayo diinta barashadeedu qofka waxa ay tusaysaa oo ay u sahlaysaa in uu kala garto wanaaga iyo wixii mustaqbalkiisa u fiican marka qodobka koobaad ee aynu u jeedinno bulshada gaar ahaan dhalinyarta waxa weeyaan in ay diinta bartaan oo dadaalka barashada diinta ay xooga saaraan qodobka labaad ee aynu doonayno inaynu iyadana aynu sii dayno in dadka aynu tusno waxa weeyaan qofku in uu ogaado yaa diinta ka qaadanaysa qofku waa in uu diinta uga qaataa qof muslima oo diinta yaqaana oo ilaahayna ka cabsada laakiinse ma banaano qof aan islaam ahayn oo inuu diinta ka qaato way dhacda dhalinyar badan in ay u dhigaan dad yiraahda diimahan u walaalaynaa diimaha ayaa isku dhow diimaha ayaa isku mid ah oo jaamacadaha ugu dhiga waana meelaha fikirka khaldan uu ka yimi laakiinse qofka waxa loo baahan yahay inuu aakhiradiisa u meeldayo uu diintana uu ka qaato qofkii u ehel ah ee diinta yaqaana ee culimada ugu noqdo qodobka kale ee aynu halkan doonayna inaynu uga farnaa waxa weeyaan dadku inay diinta ku adkaadaan in diinta ku fara adkaysataa waa shay loo baahan yahay oo daruuriya oo xil ina wada saaran bulshada dhamaanteed waayo waxaynu ka badbaadaynaa halowin ka badbaadaynaa baadibin ka badbaadaynaa inaynu lumnayn ka badbaadaynaa sidoo kale in si dhib yar laynoo duufsado ayaynu ka badbaadaynaa marka qofku waa in uu diintiisa uu ku fara adaygo meel kasta oo uu joogo gaar ahaan dhalinyarta dibadaha ku maqan waa in ay diintooda ay la xajecelaay u muujiyaan oo naftooda la xajecelo muujiyaan oo ay diinta ku adkaadaan qodobka afraad ee halkan ka farayna waxa weeyaan inuu qofku kala garto yaa ku ehela qofka ehelkiisa dhabta ah wuxuu noqonayaa
kala diinta ah ee la walaalka ah ee diinta kula walaaloobay ee maxaan ku radaa ilaahay ka cabsanaya ee islaamnimada qaatay ee islaamnimada ku dhaqma kaasa ah qofka kugu dhow ka xiriirinayso ee la jaalka noqonaysana waa ka sababta la jaal noqonaysana waxa weeyaan mar walba wanaag baa soo wada faraysan ujeedadiina waa isku mid aakhirada wada socotaan ilaahay baa wada leedihiin nabi maxamed baa wada rumaysantiin ilaahna subhanahu wa ta'ala wakiilaha والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة arrimaha ilaahay wuxuu faray inuu dadka muuminiintu barkoodba barka kale ay wali u yihiin ay iskaga dhow yihiin sababta iskaga dhawaadayna waxa weeyaan inay wanaag isfarayaan xumaanta iska reebayaan sidoo kalena salaadana ay oogayaan isagadana ay bixinayaan way yudiicuna Allah way yudiicuna rasuul ilaahina way adeecayaan rasuulkana way adeecayaan waana sababta walaalaysay ee dhabta ah intaas oo ujeedada way ka dhaxaysa nin gaalo oo aan muslim ahayn marna ujeedadaas inagana ma dhaxaynayso waana khalad qof gaala inaad soo dhaweysato aad tiraado qofka kale waa iskaga mid way jiraan dhalinyar mabda'a qaadatay laakiin ilaahay baa adoomada abuuray ilaahay baana sidan inoo tilmaamay ilaahayna waaba kale ala ya'lamu al-khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir ilaahayna cidna ugama aqoon badna cidda uu abuurtay marka waxaynu ku taakiidinanaa oo fariinteena farayna waxa weeyaan qofku waa in uu maxaan ku raday uu ogaadaa qofka u dhow oo ah qofka walaalka diinta ah qof kale oo gaala Soomaalina ha ahaado walaalkana ha ahaado kaaga ma dhawaan karayo qof kale laakiin si xiriir kale oo ay diintu inoo sameysay waa la siin karaa qodobka shanaad ee doonayna halkan ka sameynana waxa weeyaan ilaalinta culimada inaan culimada la aflagaadeyn ee culimada ixtiraam iyo sharaf iyo qadarin inta bay naga mudan yihiin culimada waxay sidaan wada halkii ambiyada waxayna ku sidaan waxa weeyaan waa diinta ay ummadda ay farayaan culimada bulshadu aad bay u ilaalisaa laakiin waayadan dambe way soo baxeen dhalinyaro aad culimada u aflagaadaysa laakiin waxaan leenahay ilaahay lagaga cabsado culimadu ummaday ka mid yihiin ummadayna maxaan ku raxil u hayaan xilka u hayaan oo xilka diinta qofkii doonaya wadaad inuu noqdo way u furan tahay marka qofkii doonaya wadaadku jecel isagu ba ha noqdo laakiin se culimada hal la daayo qodobka lixaad ee halkan ka jeedinaya waxa weeyaan dheeldheelka diintu dheeldheel ma gasho qofku waa inuu ka fikiraa inuu diinta ku dheeldheelin diintuna waxay fartay qofku haduuna mas'ala garanayn inuu cidii u ehelkaayda mas'alada garanaysa uu ka dambeeyo ilaahay baa yiri was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuuna bil bayinat hadaan garanayn qofkii garanaya weydiiya marka inaad adigu isku sheekh noqoto oo aad mas'ala kasta indhaha ka ritaan waa khalad waana waxyaabaha halowga keensaday ee dhalinyar badan ay ku jahwareereen marka taa laftigeegana in laga taxadaro oo aan diinta la fududaysan oo aan diinta lagu dheeldheelin waa qodob kale aynu fulinayno aynu farayna dhalinyarta qodobka ugu dambeeya ee guud ahaan aynu farayna waa waalidka weeyaan waalidka xilba ka saaran ubadka ay dhaleen waalidku waa in uu ubadka waxbarashada uu u dirayo uu ka warhaya waxa dhacday in khaladkan waxa waan markay waalidkii iyo dhalinyartii ay direen ee ay dhaleen fagaa ku kala yimi ayaaba tan oo kale ay keensatay laakiin waalidku waxa loo baahan yahay inuu ka warhayo inankiisa iyo inantiisa iyo ubadkiisa dhamaantii waxay qabanayaan iyo waxay baranayaanba markaas inuu heli karana bulsho wada saxsan oo wada toosan oo maxaan ku raay isku wada ujeeda ah oo isku wada mabda ah guud ahaan waxa aynu leenahay waxa soo dhan fitan ee jira waxa aynu kaga samata bixi karaynaa waxa weeyaan barashada diinta iyo inaynu diinta sida ay tahay aynu ugu dhaqanno oo aynu uga dambayno dadkii ehelka ahaa inaynu iska ilaalino wixii murana iyo wixii jaafa jiraqa ee inta badan imka dhalinyartu caadaysatay waxaana aqoon u lahayn inay ka hadlaan inay cayaantii ummadda mar walba ay caayaan qofku inuu raasamaalkiisa iyo aakhiradiisa ilaashado ayaa muhiim ah dhamaanteen inaynu wada ilaashano oo aynu ka fikirno adduunka inta la joogayo way yar tahay marka guud ahaan fariinteenu waxay daaran tahay taas aynu soo sheegnay ee guud oo qofku ah inuu naftiisana ilaaliyo mujtamacana uu ilaaliyo uuna ku noqon qof fitna wada ah oo bulshada kala dhantaala oo wax ayna bulshadu geyin mar walba ula yimaado inaasan ku soo goobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh